محمد أحمد سيد. محمد أحمد سيد. إلياس بدل قباصر. إلياس بدل قباصر. إلياس بدل قباصر. محمد أحمد سيد. محمد أحمد سيد. إلياس بدل قباصر. محمد أحمد سيد. محمد أحمد سيد. إلياس بدل قباصر. 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 ودو جدان قدومية بوكسكي وفاروق. إميكا وحن بلاوينا ترينتا عودتك كدب أيانا إنيسو جيدين دونا وحي نتيجة marka fadlan qof walba ha suga inta looga dhawaaqayo natiijada rasmiga ah. codka iyo sawaxanka hala yareeyo, dhaqdhaqaaqa hala yareeyo.
daawadayaal waxaad weli inaga daawanaysaan howlka daawada oo si toos ah ugu suganay isla markaana ay ka dhacaysay codaynta loo codaynayo kursiga u horeeyay ka mid noqonaya senatarada dowlad goboleedka Jubbaland ku matali doona golaha ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa kursiga ku tartamayay musharax Ilyas Bedel Gabose iyo musharax Maxamed Axmed Sayid doorashadii ama tirintii codadka ay haatan si toos ah u dhamaatay weli waxaan sugaynaa natiijadii iyadoo oo aan sugayno in lagu dhawaaqo isla markaana guuleystaha si rasmi ah halkan looga shaaciyo inta aanan loo gudbin u codaynta kursiga labaad guuleystaha ku soo baxa kursigan daawadayaal wuxuu noqon doonaa senatarka u horeeyay loo doorto inuu ka mid noqdo baarlamaanka 11aad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaa haatan tirada aan hayno hal cod ayaa khasaaray labada musharax codadka ay heleena weli ma aanu hayno waana sugaynaa natiijada in lagu dhawaaqo waxaa si toos ah inooga daawanaysaan shaashada TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah oo si toos ah doorashada ka soo tabinaysa magaalada Kismaayo gaar ahaan howlka daawad dowlad goboleedka Jubbaland ayaa daawadayaal si aad la socotaan ba noqday dowlad goboleedkii u horeeyay ee hirgeliya doorashooyinka iyadoo oo weli dowlad goboleedyada kalena aysan weli ku dhawaaqin waxaa maanta loo codeynayaa 4 ka mid ah 8 ka senatar ee dowlad goboleedka Jubbaland ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya daawadayaal waxaan weli sugaynaa in lagu dhawaaqo natiijada codaynta kursiga u horeeyay baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya waxaa loo codeeyay xildhibaanka ama waxaa loo codeeyay senatarka dowlad goboleedka Jubbaland ku matali doona baarlamaanka ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu ku leeyahay 8 kursi ayuu ku leeyahay aqalka sare oo ka kooban guud ahaanba ama ka koobanba 56 kursi dowlad goboleedka Puntland iyo gobolada waqooyi min 11 kursi ay ku leeyihiin gobolka Banaadir oo 2 kursi ku leh dowlad goboleedka Jubbaland Hirshabelle iyo Galmudugna min 8 kursi ay iyaguna ku leeyihiin waxaan weli sugaynaa in halkan laga dhawaaqo natiijada isla markaana la shaaciyo guuleystaha kursigan ay ku tartamayeen musharax xildhibaan Ilyas Bedel Gabose iyo sidoo kale musharax xildhibaan Maxamed Axmed Sayid guuleystahana uu noqon doono xildhibaanka ama senatarka u horeeyay ku guuleysta inuu ka mid noqdo baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weli waxaan lagu dhawaaqin ama dowlad goboleedyada laga sugayaa in ay sheegaan ama shaaciyaanba ama bilaabaanba doorashooyinka ilaa haatanna waxaa kaliya aan haynaa dowlad goboleedka Jubbaland oo doorashada maanta si rasmi ah uga bilaabatay 4 senatarna la filayo in halkan looga codeeyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo magacaabay guddiga baarlamaanka ee maamulaya doorashooyinka inta dowlad goboleedyada kale weli la sugayo in ay guda galaan howlaha doorashooyinka si loo yegleelo ama loo aasaaso baarlamaanka 11aad
ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya halkan waa magaalada kismaayo waxaa si toos aan idinka imanaynaa hoolka daawad oo ah halka ay ka dhacayso doorashada qaar ka mid ah kuraasta ee ku matali doona dowlad goboleedka jubbaland ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya natiijadii ayaa weli aan sugaynaa shaacinteeda waxaana hoolka ku sugan oo goobjoog ka ah doorashadan guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee dowlad goboleedka jubbaland doctor siyaad iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xasan maxamed ciro iyo sidoo kaleba guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka ee guddiga hirgelinta doorashooyinka